bismillah magacaygu waa Cabdiraxmaan Aadan Cabdiraxmaan Qorshe waxaan maanta halkan ku qabanayaa maasal la magac baxday meeqaam jacayl baale maasadaas insha Allah waxay jawaab u noqon doontaa maasadii walaashay hore u duubtay abwaan ismahan Arweelo ee laga magac baxday murmursi lacag baale marka hore muraad khayr mahadoo dhan ee baali marka xiga salaan miis marinkii sunnaha raac muslimnimada dawgeeda adigoo mudnaanta leh hadaad waajibkii moostay mar hadaad mamnuucayso mar inaad salaamayso nimaan midigta ku buuxin inaad qaadi mawlaa og maragana dadka sheegi miimleyda suugaanta sida mawjad soconaysa ama roob mahiigaana sida may aroor horay midhihiyo araartaydan tixdan aan maleegayo maansadan bilaabayo arraweelo maqashiiye marjacanayada keen gabadhayahay markaad sheegtay hadalkaagan muunaysan murtidiyo garfayntaada meherkaa shuruudaysan inaad tahay marwey qaali ragga kaan mahwiga keenin maal adig ku goynaya dahabkiiyo mariinkaaga marwe kaa u noqodiid ha yeeshee malayntaada fikirkiiyo mutuhiskaaga adigoo muquunaya arrinkaana maqashiisi maraggana dadkaa sheegi maansada ujeedkeeda anigoon ka maagaynin midh yar aan ku soo koobo idinkuna dhagaha maala ina yahay macnayntaada masalooyinkaagoo dhan ma ogaantu waa ciile mid yar baan ku farayay dadku maqalya yeelkeedi muxibbadu adduun maaha isma keeki guur maaha miidaama dooq maaha midh siraa la qariyay muhmal hadalku soo dhaafi malaayiinta aad sheegtay midhee waad u qalantaye bal waxaad ku mudanayso waxaad muunad dheeraatay magacii haweenoo dhan ha maqlaan dadkiyo sheego maraggana anaa kuu ah magaciyo dadnimadaada maankiyo garaadkaaga anigoon ma suugaynin xuguurku miisaanka meel sare ka yahay diinta ma waxaad ku maamuustay lacag iyo waxaan muuqan micnahana adaa sheegi mar labaad su'aashayda mucjisadan la yaabkeeda mid waa midkaan sheegay mid kalena ku weydiiye maraggana dadka ii ah inay gabadhi maansooto miidaangayaan joogo madal loo dhan yahay keento qiimaha mariinkeeda ka mid maaha dhaqankii madhab uguba weeyaane adduunyada macaankeeda manfac iyo wax suulaya ku misaashay sharaftii mahadhadan maxaa keenay micnahana adaa sheegi ereygaan ka murugooday hadalladan ismaan dhaafsan eed nagu majiirayso tidhi waan matelayaay ka mug weyn habluhu taas mar kalena ku weydiiye hadal mudan inaan sheego murtidiiyo ujeedkayga hadafkiiyo muraadkayga majaraha ujeedkayga anigoon mildhaabaynin mucda hoose aan taabto maraggana dadkaa sheegi haddii aan ku maamuuso maal iyo adduun keeno marka aynu reerowno muddo aynu wada joogno haddii layga kaa maago milyan geela lay sheegto marka ay halkaa gaadho ila waad mabsuudaayo sow intaad muraaqooto muran iyo khilaaf keento sanka iga marmarin mayse bal inaan ku maqashiiyo meherkiiyo fariinkaaga maraggana dadkaa sheegi ninka uu macbuudsiiyey miyariyo min wey fiican hadduu maamul wacan keeno midba gaar u maareeyo caashaqa muquursiiyo muxibbada naciimkeeda iyagaa mataanoobi ismaciinsan dhinacooda isaguna milguu yeelan muuq iyo jamaal fiican marba guri ka soo toosa maxalkana nin jooga og in gabdhaha la meeleeyo gacalkana la maamuuso madal khayrla weeyaani goob lagu midoobayo lama dhiga martabadaas mitidkiiyo istuurkaagan waxaanaad minguurayso noo kala micnee maandhig maraggana dadkaa sheegi marka waan ku saxayay ismaqiiqday gabadhaye muurmuursiga aad sheegtay micno weyn ma keenayo moodka iyo nool oo dhan midkaad libinta moodayso mar qudhaa la waayahay ha u noqon maxbuus doolar maraggana dadkaa sheegi sidan anigu moodayo ama ila muku weynaatay waxaan hadal ku meegaaray inan yahay micnaha qoyska kumanyaal ismaagaaya mashriq iyo dhul kala aaday qalbigaan maqnaanayn muhashada dareenkoodu wax mideeyo weeyaan mar hadduu midaynayo cadhadiina maydhayo meeqaam jacayl baa leh gaaf iyo mashraxad baa leh awlaad la mahadshaa leh qadarkaan la moosayni hadduu mawlaheen keeno hantiduna madoobaato si kastay u murugoto masaariiftu uga raagto marwo reerka dhaqataa leh maraggana dadkaa sheegi